الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، أوصيكم ونفسي عباد الله التقوى، فإنها خير ما يتزود إلى يوم المعاد. walaalayaal, khudbadaheennani waxay ku saabsan yihiin inaynu ka jawaabno dhacdooyinkii ayaamahan dhowaa dhacayay ee gaalada reer Yurub ka imanayay iyo caalamka gaalada. waxaynu ogeyn sanado xoogaa ee ka hor inay dowladaha Scandinavian-ka iyo saxaafadoodu isku raaceen in nabiga calayhi salaatu wasalaam wax laga sheego oo la ceebeeyo la caambaariyo wax iska caadiyo xorriyada ay tahay. tii kumay daynina weli way sii wadaan. beriga hore shakhsiyaad baa bilaabay, laakiin hadda waxaynu arkaynaa dowladihii iyo baarlamaanadoodii iyo shucuubtii baa isku raacay taa. idan in laga jawaabaa waa xaq weeye, waana waajib. waxaanay ka turjumaysaa jacaylka inuu nabiga u qabno calayhi salaatu wasalaam iyo iimaankeenna iyo inuu inagu weyn yahay. cidda kugu weyn marka meel lagaga dhaco ismahana tidoo ayriskama fadhiisatid. waxaynu ognahay maanta qofka meel laga dhace saxaafadda laga caayo ama qabiilada wax laga sheego ama qaramadan la sheego mid ka mid a haddii wax laga sheego taquumu dunya walaa taqcud. adduunyadu way istaagtaayoo qolo waliba way soo kaakacaanoo meelahaasay soo fadhiistaanoo mudday daldalmaan oo ay hadlaan. waayo qofku isagaa isku weyn, qabiiladiisuna way ku weyn tahay, qoladiis qarankiisuna waa ku weyn. marka haddii dadku ay ka aamusaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay ka hadlaan arrintiisu ay u hiiliyaan, waanu ku weynayn bay ka dhiganta. kama xanuunsatid wixii aan kugu weynayn. sidaa daraaddeed khudbaddeennu 3 qaybood bay noqon doontaa. qaybta u horreysaa waxa weeyaan cinwaankeedu ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah. ilaahay baa inala hadlo, wuxu uhi haddaa u hiilin weydaan ilaahay baa u hiiliyey. ayaamihii aad kaa soo maray yaa isgarab taagay ilaahay subxaana wa tacaala. markaa qodobka u horreeya waxa wey inayn 10 qiso soo qaadanno oo kooban oo wada saxiixa oo sheegaya sida nebi maxamed intuu noolaa iyo intuu dhintayba ilaahay u difaacayay. waxa labaad aynu ku xigsiin doonaa inaynu soo qaadanno 4 qiso oo sheegaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siday asxaabtu u difaaci jireen, hadday qowl tahay iyo hadday ficil tahayba. qodobka saddexaadna waxa weeye inagu haddaba maxaynu yeelaynaa iyo inagu sidaynu u difaaci karnaa. waxaynu u gudbi lahay markaa qisaskaas. qisooyinkana cibrooyin iyo casharo badan baa laga dhaxlaa, dadkana waa lagu tarbiyeeyaa, tusaalena waxay u yihiin in lagu daydo. imaamu lbukhaari saxiixiisa wuxuu ku warinayaa, waa siyaabuhu nabiga ilaahay u difaacayay qisaskani sheegaya. xadiidkana abi hurayra nabiga ka soo warinaya calayhi salaatu wasalaam, nabigay caayeen gaaladu intii uu maka joogayba. magaciisii magacaan ahayn bay u bixiyeen. magaciisu waa muxamed sala allahu calayhi wasalam, kii la mahadiyo weeye. mudammam bay u bixiyeen oo macnihiisu yahay kii ceebaysnaa. dadkii buu doonay inuu nebigu ka qanciyo, isagoo u sheegaya siduu ilaahay u difaacaya. rasuulku waxau uhi alaa tacjabuuna kayfa yasrifu allahu cannii shatma quraysh. miyaydaan la yaabaynin siduu ilaahay iiga duway cayda quraysh. nin mudammam la ydhaa bay caayayaan, wa ana muxamed, aniguna muxamed baan ahay. marka midhkaa caydaa way ila seegeen buuhi, isma oge leanna aniga mudammamba layma yidhaahda, marka waxaan uga hadlaaba ma jiraba. ilaahay baa iga jeediyey buu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam caydoodii. marka caydii ay caayeen ilaahay baa ka jawaabay, nebiguna waa ka xun yahay, isna wuu ka hadlay, ummaddana wuu ka wacyigeliyey. wax laga aamusaya inaan ahayn bay muujinaysa. qisada labaad saxiixu muslim baa kitaabkiisa ku soo saaray min xadiidi abi hurayra. abi jahl ninkii la odhan jiray kibre edabta daraa
iimaan la-aantana adduunka kaga tegaya ayaan darrada maalin maalmaha ka mida buu la hadlay dadkii saaxiibadii ahaa ee meesha joogay waa intuu nebigu maka joogay calayhi salaatu wasalaam ee tirada asxaabtii xooggoodu yaraayeen wuxuu idhi ma idinka oo dad wax garanaya oo waaweyn baa ayaa Muxamed intuu fooda dhigo dhulka uu ku xoqxoqaa ciidda idinkoo arkaya maxaa wax uga qaban weydeen dekaala aduu ka qababayda waaya bal marka uu sujuuday soo sheegay qoortan kaga joogsanaya isagoo tukanaya nabiga loogu yeedho waxa leeyahay waa kan uu tukanayaa bal kaale wixii aad sameyn lahayd samee nabigu uu yimi calayhi salaatu wasalaam oo sujuudsan xoogaa markuu u jiro tallaabooyin kooban ayaa wuxuu bilaabay dib u gurasho sidii qof dib u cararaya sii dhacayo kale isagoo gacmahana sidaa wax iskaga haya sidii wax cid iska caabiyay kale sidii buu ku cararo way u yeedhana waxa maxaa kugu dhacay wuxuu markii aan u dhawaaday iyuunba aniga iyo isaga inta naga dhaxaysa ayaa god weyn baa ka dilaacay naara ka soo holcaya baalal waaweyna way ka muuqdeen lafahaygaan u baqay rasuulka sallallahu alayhi wasallam asxaabtu way weydiiyeen wuxuu yiri hadduu intaa ka soo dhawaan lahaa lakhtatafatu almalaa'ikatu udwan wallahi inay malaa'iktu xubin u jari lahayd buu nabigu calayhi salaatu wasalaam gaalkaasi wixii uu doonay ilaahay baa indhihiisa wax tusay oo ka difaacay qisada saddexaad waxa warinaya Bukhari min xadiis ibn Abbas markii ay soo degtay aayadda ilaahay uu nabiga la haduu wa anzir ashirataka alaqrabin udig qaraabadaada ay isxigtaan ay isku dhowdihiin oo gaalnimada iyo cadaabka ku soo socda uga dig amarka ilaahay buu qaatay nabigu calayhi salaatu wasalaam buurtii Safa ayuu fuulay Kacbada agteeda tolkiibuu u dhawaaqay jilib qaraabadiisii u dhawaana uu dhawaaqay walla soo ururayo wuxuu yiri ma rumaysan lahaydeen haddaan idin raahdo buurtan dhinaceeda col fardawata ka soo baxaya haaba yiraahdeen oo been kuguma ogin haddaba wuxuu yiri inni nadiirun lakum bayna yaday cadaab shadiid waxaan idin ka digayaa waxaaba wax ka daran oo cadaab adag oo soo socdo gaal ku dhici doona islaama ilaahay hoggaansama ninkii la oran jiray inkaar qabi adeerka oo Abi Lahab la oran jiray baa yiri tabban laka li hada jamactana war allaha ku halaagay ma inta saad noogu baqadaad magaalada ugu yeedhay hayaay waxaad la lahayd waa sabaaxah bay oran jireen war ma inta saad u yeedhay intii meelahan ka sheegi jirtay baad umada u soo qaxisay ilaahay baan ka aamusina ka jawaabo suuradan ayuu ku soo dajiyay oo ilaa adduunku intuu jira la akhriyo ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha وانا نينك كليه قالada quraanku magaciisa magacaabay ummadii waqtigii nabiga joogtay tabat yada abi lahab baad ka akhriyaysa waxay sheegaysaa markaa caydii iyo aflagaadadii iyo edab daradu sameey ilaahay baan ka aamusina difaacay nabiga calayhi salaatu wasalaam biqur'aan yutla qur'aan aynu akhriyayno qisada afraad taasun ba xiriir la sii leedahay oo iyana xadiidka saxiixa baa sheegaya waxa soo ruqaansatay habartiisi Jamil bint Harb Abi Sufyan bay walaalahay كانت تقود حملة الإيذاء أكثر من زوجها dhibaatada nabiga lagu haya calayhi salaatu wasalaam qayb ka badan bay iyaduna waday oo ay horkacaysi shariirad bay hay dhib badan waatii qolxaha soo guri jirtay bal inuu nabigu reermo oo uu fariisto ugu daadin jirtay dariiq qodaxda kiriga iyo daalabta adag mudaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay liisku ku daray marka wa mar'atuhu hamalat al-hatab fi jidiha hablum min masad quraanka soo la akhriyay dhageysatay waxay soo qaadatay dhagax waxay tiri Muhammad hal ay tuso fiiri waa dhagaxa weyn ee waraaba tuurkee weyn Abu Bakar iyo nabiga wada fadhiyay ku soo baxday Kacbada agteeda Abu Bakar marna iyadu eegaa marna nabigu eegaa nabigu naxay calayhi salaatu wasalaam nabiguna kalsooni buu qabaa wayse soo dul taagtay waxay tiri Abu Bakar oo saaxiibka inuu caayay baa la ii sheegay وأجاء النبي عليه الصلاة والسلام ما بقى أركيسوا إلهي بقى عندها وسهبي بلاستر بالا جنبا ويأكتاج أنت ويدول تاج أنت ما أركيس حيلا هاي هدي أن أركي لها رجع حسن أفكك قالوا فلها وعلى مني للشاعرة واحد أجاتا إن أنا نقولنا هاي بيلاذي تجا بيضا جوا يجانا قانا
marka gabaygii baan u tirinayaa muxamadan mudammaman casaynaa wa amrahu abaynaa wa diinahu qalaynaa nacnacadaasay sheegtay waxay leedahay mudammam waanu diidnay amarkiisiina waanu caasinay diintiisana waanu nacnay halkaasay ka dhaqaajisay way dul taagantahay mana arkayso waa difaac ilaahay uu difaacay rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrinta shanaad saxiixu muslim baa ku warinaya kitaabkiisa min xadiidi cabdillaahi bni mascuud waa dhibkii badnaa ay nabiga ku hayeen calayhi salaatu wasalaam ee diintaynu ku badbaadnay uu daraaddeenu soo maray wuxuu idhi annaga oo ag joogna kacbada ayaa dhinaca xijru ismaaciil kacbada agteeda waxaa fadhiya abijahal iyo koox kaloo gaalada ka mid a nebiguna halkan uu ku tukanaya waa 7 nin meelahaasoo kuwii ugu dhibka badnaaya abijahal baa wuxuu idhi carwaa ninka geesiga ah waa kaa maxamed sujuudsane neefka halkaa ku dhalay mandheertiisa soo qaada waa neef geela mandheertiisood garanaysa culayskay leeday intuu soo qaado maxamed dusha ka saaraya waxa kacay ashqa alqowm ummaddankii ugu gaalsanaa ee la odhan jiray cuqbat bnu abi mucayd ee ninkii hashii nebi saalix gowracay qudaar ibnu saalif la odhan jiray la mid ahaa qudaaru haadihi lumma mandheertii buu soo qaado nebi maxamed oo sujuudsan buu dusha ka saaray sala allahu calayhi wasalam bidahrihi shariif nebiguna markuu had iyo jeer salaada ku jiro caalam kaluu galayay oo cibaadada u macaanayd oo culayskan iyo waxyaabaha urtaaya ma dareemayo sujuuddiisii buu iska watay cabdillaahi ibnu mascuud markaa wuxuu leeyahy anigu itaal ma hayo intaasoo gaala uma badrheeri karo way googoynayaan dhib badan bay soo mariyeen tallaabo maan qaadin laakiin inantiisii geesiyadda ahaydee faadima loo sheego soo carartoo ka qaaday iyadoo weli nebiguu sujuudsan yahay calayhi salaatu wasalaam haddaad adigu duqsiga iyo kaneecada ka cararayso iyo xasharaadka ku dul maraya weli wuu sujuudsan yahay mandheertiina way saarantay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyagiiba u kala tirisay way cayday nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaadii dhammaystay buu istaagay ama duceeyey allahuma calayka biquraysh allahuma calayka biquraysh 3 jeer buu ku celceliyay ilaahow nimankaasaan kugu ogahay 7 nin buu halhal u magacaabay cabdillaahi ibnu mascuud wuxuu leeyahy allah ka raali noqdee waxaan ka markhaati kacayaa 7 ninba iyaga oo baktigoodu geylaansan yaho uu yaalo maalintii beder bannaankii beder ayaan indhaha saaray buu oo weliba intoo cagta la qabtay baktigoodii lagu jiiday xorfadii weyneyd ee gaalada lagu ururinayay ilaahay baa difaacay nebiga calayhi salaatu wasalaam qisada kale axmed baa musnadkiisa ku warinaya min xadiid ibni cabbaas axmed shaakirna saxiix buu ku tilmaamay mar kale nimanka gaaladu waxay ku shireen kacbada agteeda reer quraysheed intoodii madaxda ahaa waxay yidhaha maxamed weyna dhibay khadyaan baynu ka taaganay waxaynu u baahanay maanta warkiisa inaynu soo afjarnaynu ka nasanno jilib baynu u qaybsanaynaa magtiisa jilib walbana nin baa laga soo saaraya intaasoo seefaad baa ay qaadanayaan mar qurayno gacanta saarayna imika aan u diyaar garowno raggii dili lahaana waa la diyaariyey magtiina waa la qaybiyey qof walba inta ku hagaagaya fataxaalafuu watacaaqaduu billaata waalcuza wamanaata athaalithata alukhraa ilaahyaashoodiina way ku dhaarteen si aanay ugu kala bixin arrinkaa waxaa maqashay warkii oo sirdoonka nebiga ahayd inantiisii geesiyadda ahayd faadima radia allaahu canha wa ardaaha iyadoo cararaysay nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam oo ooyeysa markaa waxay leedahay aabba waa lagu tashaday go-aankaasay gaaladii gaadheen nebigu isma dhibin calayhi salaatu wasalaam kalsoonidii ilaahay buu qabaa wuxuu yihi bal hadda xoogaa biyo ay keenan ku weysaysto wuu weysaystay rasuulku sala allahu calayhi wasalam cadowga shayaadiinta waxyaabaha lagula dagaalamay dahaaradu ka mid maadaama gaalku wasakhaysan yihin intuu nebigu weyse qaatay ilaahiisaa tilmaamaya oo toosinaya ayaa kuwii shiraya xaggooda u kacay in yar markuu u soo jiraa waxay fartay ku wada fiiqeen mar qura waxay yidhaahdeen haa huwa daa war waa kan ninkiia ku kaca intaa markay yidhaahdeen hadalba kama dambeyn dhammaan waxay noqdeen sidii wax ama suuxay ama lula weyne ay ku dhacday oo kale garhka ayay laabta la dhaceenoo way wada foorarsadeen nebigu ciid buu soo daray calayhi salaatu wasalaam isagoo ka boganayu dhammaan halhal ugu saydhay waxaa sugan intii ciiddaasi ay gaadhay maalintii beder baa lagu laayay 70kii nin halkaa ku dhintay
ayay ka mid ahaayeen. qisada toddobaad bukhaari baa warinaya min xadiidi abi hurayra, waa intuba waxay ka turjumayaan siduu ilaahay u difaacay nebiga calayhi salaatu wasalaam. maalintii la xoreeyey khaybar, yuhuuddaa deganaan jiray, dhib badan bay islaamka ku hayeenoo heshiisyadii way ka baxeen. wuu jabiyey nebigu oo waa kii hilifaa u qaadeen, midhba meel lala maray, qaniimo lagaga dhergay xoolahoodii. intuu u tegey buu waraysi la yeeshay nebigu, kuwii wadaadadooda ahaa. wuxuu 3 su-aalood buu weydiiyey. ta horeysa waxay ahayd, yaa idin dhalay? odaygee ka soo jeedaa? nebiguna waa kala yaqaanay calayhi salaatu wasalaam. been bay sheegeenoo kii ay ku abtirsanayeen mid aan ahayn bay sheegeen. wuxuu nebigu uhi beenaalayaal baati, aabbihiinkaa maahae waa hebel. waa runtaa bay yidhahdeen. way yuhuud iyo gaal waa beenuunu daah. waa runtaa bay yidhahdeen. mar labaad haddaan wax idin weydiiye run ma idinii sheegi? haa bay yidhahdeen. haddaanu been sheegnana dee waad nagu qaban. wuxuu idhi yaa naarta gelaya? ahlu naarku waaya, man ahlu naar. aakhire marka la tago yaa naarta gelaya? waxay yidhahdeen nakuunu fiiha yasiiran uma takhlufuuna fiiha. in yar baanu anagu naarta gelaynaa, kadibna muslimkiinaana bedelaya oo naarta ku dambaynaya. nebigu waxau uhi ikhsa'u fiiha, allaha idinku fogeeye beenaalayaal baati. mar saddexaad haddaan su-aal idin weydiiyo ma idinii sheegi? haa bay yidhahdeen. haddaanu been sheegnana waad nagu qaban sidii tii hore. wuxuu idhi neefkan ma soo sunayseen? casuumad bay u sameeyeen, neef adhiyoo shiilanoo sun bay soo mariyeen. haa waanu soo sunayna. oo maxaa markaa idinku kalifay? waxaanu isidhi haddii uu beenaalo yahay aa ka raaxaysateen, hadduu nebi yahayna waxba yeeli mayso. oo horaan u ogay nebiga inaanay waxba yeelayn. nebiguna calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa uga digay hilibkaa isaga ah, ama hilibku ha hadlo ama si kaleba ha loogu sheegay. asxaabina wuu ku dhintay, nebiguna wuu ka badbaado, ilaahay baa ka difaacay subxaanahu wa tacaala. qisada 8aad iyadana bukhaari baa warinaya min xadiidi anas ibnu malik. nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi, kiristanku ahaa, wuu soo islaamay. wuxuu bartay suuratu lbaqara iyo aalu cimraan, labada suuradood qur-aanka u dhaadheer. nebigana waxbuu ka qorqori jiray ama uba qorqori jirayba. in yar kadib inkaar baa ku dhacdo, gaalnimadiisiibuu ku noqday. ayaama kadibba wuu dhintay. ilaahay baa kow ka siiyey. way aaseen saaxiibadiisii gaalada ahaa. dhulkii baa diidoo soo tufay. macnaha waxay tilmaamaysaa inuu khalqiga ilaahay, haddii dadka asxaabtu saa ugu hiilinayaan, dalka ilaahayna nebiga ugu hiilinaya calayhi salaatu wasalaam. dhulkii baa diiday ninka nebiga caayayey ee ceebeeyey ee risaaladii iyo waxyigii wax u dhimay, uu soo tufay markaa. haa bay yidhaaheen gaaladii, maxamed iyo saaxiibadii markuu ninkani ka soo cararay ayay ka daba yimaadeenay meydkiisii soo qufeenay bannaanka soo dhigeen. soo maaha xabaasha u dheereeya. way aaseen, xabaashii bay dheereeyeen, 2 joog ka dhigeen, way ku heleen oo way ku xidheen. haddana isla habeennimadiiba dhulkiibaa soo tufay. subaxdii bay yimaadeenoo waxay idhaahdeen war weli way daba socdaan. xabaashii bay haddana dheereeyeenay 3 joog ka dhigeen, way ku libdhiyeenoo way ku xidheen. markii saddexaad buu dhulku soo tufay. facalimuu ana hada laysa min albashar. markaa waxay ku qanceen arrintani arrin bani aadam inaanay ahayn. faalquuhu cala alard. markaasay dhulka ku tuureen. ay yidhahdeen baktigiisa aydu ha cunto, maxaynu ku falaynaa? dhulkiiba diidiya, saynu idhaahna xageynu geynaa? ilaahay baa u hiiliyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam. qisada 9aad, xata alxayawaanaat tantaqimu lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam. haddaynu inagu iska fadhfadhino, xataa xayawaanku wuu u hiilin jiray nebiga haddii xumaan lagu soo hadal qaado. ibnu xajar kitaabkiisa la yidhaahdo adduraru lkaamina waxa uu ku xusayaa, waxa uhi wakhtigii mangooliska ama nimankii tataarka la odhan jiray muslimka ay ku soo duuleen ay jabiyeen, ayaa waxay isticmaaleen ama ay iskaashi la sameeyeen nimankii gaalada ahaa kiristanka. oo ay ogaayeen dee kiristankuna inay muslimka la dagaalamayaan. marka waxay u ogolaadeen diinta kiristanka inay faafiyaan. ninkii hogaaminaya tataarka ee holaaka la odhanayaba arrintaa uu ogolaaday, naagtiisina waa tii kiristaanooday. markaa kuwii kiristanka faafinayay qaar ka mid a oo maxfal weyn oo 10,000 oo qof ay joogaan diintii kiristanka dadka u sharxaya,
ayaa nebigu caayay calayhi salaatu wasalaam uu ku celceliyey ummad aada u badanina way dhegaysanaysaa 10,000 kun oo qof ay halkaa ku xidhan ayaa xamili waayo xadhiggii intuu soo goostay ayuu aada u qaniino u xafuujiyey waa laga fujiyey oo aygii waa la xidhay dib baa loo celiyey qaar baa waxay dhahdeen intii hore kugumuu soo boodayn bahalku markii aad caydaa bilowday maxamed caayis ayuu bahalkani soo fakaday wuxuu ihi maya kaana casiizan mid sharisa buu ahaayo yaro qalifsanoo marka dhowr jeer baan faraha saa ugu fiiqayoo aygu wuxuu mooday inaan isaga ku socdo ama aan dilayo caydiibu halkii kasii wada haddana canaadkaasi uu ku celiyey aygii intuu soo muruxsaday ayaa uu cunaha ku dhegay waa kala jaray biyo buuflaha wax ka fujiyana waa la waa ilaa intii naftu ka baxaysa وهذه نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصة سجن وية وعلماء مراجع ذا يكون رمان جوابتنا وحي نقطة دتكي وكريستن كأو شرح يودي جاي أفرتن كن قفوا منقول ممكن مقول كلا هذا كم إذا أي هالكيكو إسلامي ووحي أركان رنتن عجائب كأه إلهي والسمية سبحانه وتعالى يحقي سبب بيون نقطة يسوي قال لي مدوني يدك كلا دوني إسلام بسبب نقطة هلماتكو إلهي نبي جوه لي عليه الصلاة والسلام درادين قصة طبنات وحي نورين يا الشيخ المحدث أحمد شاكر وإمك اللبية لحدا سنضاد ميلاس الشيخ وموتين هاي محدثين تي عصري هروها وحلايها وحنو سوتشوغي وأبهاي إيشاغي إيشاغو مسجد كنتو كان يا علماء أسرنا وها وكيلك أسر أيا مسجد كي نين مدحه ومدح دي رير مصر كم إذا كنتو كان يا نينكي خطبة آخرية wuxuu u mujaamaleeyay ama isyiri ku dhawow maslaxada dunyada daradeed ninkii madaxda abu amaaray hebel waa caynkan hadalkii baa wuxuu ku soo daray fajaahu al-a'ma wama abasa wajhahu wama tawalla nin dhoolaaba ninkan madaxda maalin dhaweyd u yimi wajigana muu ururinin kamanuu sii jeedsanin markii salaadii laga baxay ayaa wuxuu ii sheegay buu aabahay inuu istaagay uu hadlay wuxuu dad yahow goobtan isugu yimi masjidkan salaadiidin ma ansixin khatiibkiina uu gaaloobay jumcadii ku noqda waayo markii uu ninkan ammaanayay ee uu yidhi wajigana muu ururinin ninkan madaxdii kamana sii jeesaninin dhoolaha nebigu si dadban u dhaliilayay nebi maxamed ilaa suuratu cabasa macnaha sheegayse markaa wuxuu leeyahay nebigu wixii uu sameeyey ninkan madaxdii muu samaynin ninkan madaxdaa baa nebiga ka wanaagsan mar hadduu ninkan madaxdaa nebi maxamed ka sarraysiiyey diintii wuu ka baxaye khudbaddii iyo salaaddii soo ceshada buuli cidiba may dhegaysanoo dee nin madaxdii la safan buu ahaa waa la iska kala tegay sheekhii wuxuu ihi waxaan arkay oo aan ka markhaati kacaya aabihina nin caalimo buu ahaa ninkii odayga ahaa oo kuwii ammaanaya ilaahay ku diray oo ay eriyeen man caana daaliman sullida calayh qofka daalimka ah qofka u hiiliya ilaahay uu ku salidaa khudbadihii iyo diintii wixii oo dhan waa laga eriyey meelihii uu ka hayay camalka ummadiina way nacday maalintan baa ku soo baxay buu ihi dadka tukanaya ee masaajidka sii galaya isagoo kabaha u ilaaliya sidan baalashlayaashu had iyo jeer ay idhahaan kuusii baalasheeyo aan kuusii ilaaliyo ninkii khadiibka ahaa mufawaha ahaa ee codkarka halkaasuu maraya ilaahay baa duleeyey kadibna waxaan sii buui waa kaa nixi doonaayo kuwiirsi buu arkay oo uu garan doonaa dhinacaasaan uga baydho waan iska dhaafay buuhi intaa markaynu ka nimaadno walaalayaal waxaynu u gudbi lahayn asxaabtu allaha ka raali noqdee nebi maxamed haddii ma lagaga dhaco maxay yeeli jireen iyagu qowlna way ku jawaabi jireen ficilna way ku jawaabi jireen aynu soo horraysiinna qowlkiisa nebiga gaalada way soo caayeen gabayay soo tiriyeen aad buu uga xumaaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam rasuululumma mar haddii wax laga sheegay diintii wax ayaa ummadda islaamka iyo ilaahayba waa lagu xadgudbay subxaana wa tacaala markaa gabayaagii buu u yeedhayoo kacbu bnu maalik buu u yeedhay wuxuu war bal nimankan u jawaab wuu u jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma qancin wuxuu haddana u yeedhay gabayaagiisii labaada cabdullaahi bnu rawaax wuxuu war bal nimankii u jawaab wuu u jawaabo haddana halkeedii muu dhigin xasaan binu thaabit buu u yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo nin da-weyn ahaa 60 sanana jaahiliyadii buu kusoo jiray 60 sanana waxa uu ahaa dadkii muslimiinta buu ka mid ahaa islaamka carabku difaacay markuu arrintii nebigu u xil saaray uu yidhi waxaan doonayaa nimankaa inaad u jawaabto carabkiisuu soo saaray sida libaaxu had iyo jeer markuu cartamayo
dabadiisa hareeraha ula dhaco kalu carabkii soo saaraan suu kaasaan ku jarjari doonaa sida maqaarka qalalay loo dildilaaciyo kale sidaasaan u dildilaacin doonaa buuri markuu nebigu arkay halkuu marayo ayuu bireega u yara qabtay wuxuu wardee nimanka waanaan ka dhashay quraysh waana isku dhex jirnaa cirdigayga iyo sharaftayda inaad soo gaadhana sax maaha bal abubakar sidiiq baa ummadda aada u kala yaqaanee ha kuu talkhiisiyo oo ha kuu kala saarsaara si aad u kala duudee bal u tag abubakar baa markaa u sharxay qabaa'ilkii u sharxay kaasi waa caynkaa kaa nabiga xidiyiin kaa nabiga xigaal yihiin nebigu ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu uhi warkii waan fahmay abtirsiinadiina kala garta wallaahi sida xabadda tinta ah looga dhex siibo qooshka ama cajiinka ayaan kaaga dhex saari doonaa oo iyagana hilifahan u qaadayaa meel fog baan kaga soo hari doonaa adigana ku taaban maayo ka wad buuri waa kii gabayga tirinayay hamsiyada hamsaha kusoo wada ororaya gabagabadiisu ay ahayd maqaafiyadu waxa uu lahaa hajawta muxamadan faajabtu canhu wacinda allahi fii daka aljazaau waxaad cayday muxamed anna waan ka jawaabayaa buuri ilaahay agtiisaanaan abaalka ku leeyahay atahjuu walasta lahu bikuf'in fasharukumaa likhayrikuma alfidaau miyaad cayday buu nebi maxamed adigoon u dhigmaynin oo aan ka ag dhoweyn adigoo sharlo ah isagaa ilaahay uu kugu furan doonaa fa ina abii wa waalidahu wa cirdii licirdi muxamadin minkum wiqaaw aabbahay iyo aabbihii iyo sharaftaydaoo dhammi waxay difaacu yihiin iyo gaashaan sharafta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hajawta mubaarakan baran xaniifa amiinu llaahi shiimatuhu lwafaau waxaad cayday buu ihi nin samafalo ah oo xaqa u soo leexanayoon xumaan u dhoweyn oo ilaahayna aaminay ummaddana u dulqaata faman yahjuu rasuula allaahi minkum wayamdaxhu wayansurhu sawaau gaala haddaad tihiin buuhi waxaa isugu kaaya mida ka muxamed caaya nebi maxamed caaya iyo ka la dagaalamiyo ka u hiiliya midna looma kala hadhayo tadallujiya u hanjabay markaa innaga waxba ma hanjabayna hadal un baynu haynaa soo maa qolyihii hubka hayay iyo waxaasina way ka muqurteeno way gabadeena isagu waa hanjabayaa marka ilaa hadalkaaga haddii hanjabaad iyo awoodi la socoto markaasuu miisaan leeya waxaa la yidhi inaan warankaagu gelin weedhaadu ma gasho waxa uu leeyahay tadallu jiyaaduna mutamatiraatin tulatimuhunna bilkhumuri nnisaau fardaha iyagiina way soo socdaan iyagoo dheeraynayo aada u dhididsan dumarkuna jacaylka ay u qabaan dharkooday kaga masaxayaan dhididka yubaariina alacinata muscidaatin calaa aktaafiha alasalu dimaau siday u dheeraynayaan xakamahooduna aada buu u ciyaarayaa dushana waxaa ka saaran warmo u ooman dhiiggiinna wa jibriilun rasuulu llaahi fiina wa ruuxu lqudsi laysa bihi kafaau waxaana na wehelinayaa cidaydaan haysan baanu haysanaayo malakuljibriil baana dhex jooga oo ruuxulqudus baa magaciisa la idhaahdaa wax u dhigmaana ma jiro fa in acradtumuu canna actamarna wa kaana alfatxu wankashafa alghitaau beytullaahi alxaraamka hor fadhidaan baanu ku soconna haddaa dhan uga baydhaanna waanu cumraysan doonaa daboolka gaalnimaduna meeshu dhaafi haddii kale dagaal ogaada buuli intaasi waxa weeyaan waa gabayadu tirinaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam aada uga mafsuuday markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu duceeye wuxuu uhi allaahuma ayidhu biruuxi alqudus ilaahu malakul jibriil ku xooji oo ereyada uu ka saacida maxaad umalaysaa nin malag eray bixinta ka saacidayo oo ilaahay barbar taagan yahay subxaanahu wa tacaala hadalkaasoo qura may ahayne ficil bay ka gaari jirtay asxaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii rasuulkooda mucadamkaa wax la yeeleeyo ama hadal la gaadhsiiyo waxaa abi daawud uu warinayaa qiso sanadkeedu sugan yahay walaha shawaahid oo markaa daliiladu ay isxoojinayaan ama duruqu waxaa warinaya cali bnu abi aalib allaha ka raali noqdo wuxuu ihi wakhtigii nabiga waxaa jirtay habar yuhuudiyada oo nabiga caayi jirtay calayhi salaatu wasalaam cishadii dambe nin baa u adkaysan waayo xuurtu ku qabtay intuu sidaa xuurto ugu qabtay buu ku hayay ilaa naftu ka baxaysay waana lagu yaqaanay edabdarrada ah fahadara damaha rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam markaa nebigu wuxu uhi matiibaa ogaada dhiiggeedu waa hadur wax ka soo qaad ma leh qisada labaad iyadana abi daawud baa warinaya waa saxiix sida albaaniya rag kaleba ay xuseen nin baa jiray wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam mu'min ahaa nebiga jeclaa u indhalaa wuxuu qabay ummu walad addoon carruur u dhashay buu qabay way edab daray nebiga caayi jirtay calayhi salaatu wasalaam nebi cayga gaal weligii wuu soo wadee
ama murtadad baa dee muslim bay sheeganaysay ama gaalad labada lama kala cayimin laakiin nabigu bay caay jirtay nakada na rasuulka ilaahay caay na rasuulka ana jecel kada way dhageysan weyday way ku waday habeenkii dambe isaga oo maqlaya ayaa caayday wuu sugay markay seexatay ayaa wuxuu soo qaatay bilaawo dheer de waa indhalaayahay markaasuu ku ruqaansaday oo kolkaasuu halkaa caloosha ayuu ka taabto markaasuu ku tumaatiyey dhulku gaarsiiyey de waa ninka xoog badan ha qayliso ha rafato way kici weyday ilaa naftu ka baxaysay bartiibu ku hayay markuu ogaaday inay dhimatay ayuu ushiisii qaatay oo uu iska tegay subaxii baa loo yimi labadii ciyaal ahaa ee ay isaga u dhashay iyo iyadii oo dhiigu isu baxay nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadii waa isugu yeedhay eeriyada ka dhoweyd aad buu abhiyey wuxuu yidhi ninkii aan ogsoon inaan xaq ku leeyahayow ee gabadhaa dilay oo istaagoo kaca ninkii dhoolaha uu kacay warkiisiibuu caddeeye wuxuu yidhi aniga ayaa tan u baxay anaa ku quustay buurdad iskuma jire waxaanaan kuu sheegayaa sababtu sidaa iyo sidaas ahayd waqti baan siiyey waan ka waaniyey way diiday saasaan ku dilay buuri waxaanaan kuu sheegayaa arrintu may ahayn mid xaggayga iyo carruurtayda ku saabsane kaanad rafiiqatan bi aniga way ii naxariis badnayd buuri waxaana ii dhashay laba inan oo cadcad mithla lu'lu'atayn oo jawhartoo kale ah say u dhalaalayaan marka waxay ahayd afar reerka u roon ninkana u roon carruurtana u roon laakiin nebiguunbay nabcay anna taasaan u adkaysan waaye nebigu calayhi salaatu wasalaam maqaalad cajiiba buu dha ummaddii u dhawaaqo wuxuu uhi alaa ishhaduu anna damaha hadur war dhagaysta taa dhiiggeedu waa hadur wax ka soo qaad ma laha qisada afraad waxay dhacday wakhtigii abubakar uu nebiguba dhintay sala allahu calayhi wasalam abubakar isagoo madaxweyne ah oo ummadda madaxweyne u ah ayaa ninbaa u yimi ninkii hadalkiibuu ku adkeeyey aad buu aflagaadeeyey qisada waxay noo warinayaa ibnu abza alaslami wuxuu uhi waan u adkaysan waayey ninkan madaxweynihii muslimiinta sharafta badnaa cadaaladda lagu ogaayo miskiinkaan uma daba dhibi jirin ku xadgudbaya abubakar buu markaasaa u eego wuxuu uhi aqtuluhu ma dilaa ninka abubakar fantaharanii wuu i huruufay markaasuu uhi maxaad u dilaysa laysa dalika liaxadin bacda rasuuli illaah cid la caayo waxaa dili kara uun cid wax caayda waxaa la dili karaa uun qofka nebiga caaya calayhi salaatu wasalaam qofka nebiga caaya unbaa la dili karaa laakiin aniga cidda i cayday hadeer xaquma lihid buun inaad disho ee mar dambe hadalkaaha ku celin kullu daalika waxay tilmaamayaan tallaabaday qaadi jireen saxaabadii nebiga ridwaanullaahi calayhim wa ardaahum ee uu nebiguna ku ogaa isaga laftiisu dee sidaa uga jawaabay marka waxaynu u gudbaynaa qodobka saddexaad oo ah innaga maxaa inala gudban marka ummadda islaamka haddii aynu nahay innagana sidaas oo kale waxay nala gudban waxa noocan oo kale ah cayda noocana ee weliba heer caalamiya ee weliba dowlada ka soo fulay inaynaan horta eeganin waa munkar waa dembi dembiguna nebigu markuu hadlayay wuxuu uhi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadi fain lam yastadic fa bilisaani fain lam yastadic fa biqalbi wadalika adcafu liimaan qofka dembi arkaa gacan waxa kaga qabto carab waxa kaga qabto qalbiga ha ka naco marka inaynu tallaabooyinkaynu kolba karayna qaadno waajib bay ku tahay madaxda muslimiinta oo maanta hadday dowladihii hadleen dee siyaasiyiinta u jawaabi lahaa siyaasiga iyo golayaasha dee siyaasiyiinta iyo golayaasha u jawaabaya waayo arrimaha qaranka iyo dowladaha markay ka hadlaan dee madaxdaa u jawaabta marka qaranka iyo masaalixda iyo danaha ummadaba ta nebiga ka weyn calayhi salaatu wasalaam waa arrin iimaanka iyo diintiya waxaa waajiba culimmadu inay ka jawaabaan waxaa waajiba arrintaa kolba wixii munaasiba in lagaga jawaabo waa sax tallaabaday qaadeen dadka muslimiintii hadda oo ah inay ku tallaabsadeen gaalada waxyaabaha damqi kara gaaladu had iyo jeer waxyaabaha caabudaan waxaa ka mid a maalka iyo xoolaha ilaahuhum alawal waalaakhir waa ilaahoodii hore iyo kii dambe marka haddii hoosu dhac dhaqaale uu ku yimaado aad bay uga damqadaan marka in badeecadahooda la naco oo nacaybshiyaha loo qabo loo muujiyo oo cunaqabatayntaa la sameeyaa waxay keeni kartaa inay hoos u dhacaan ama ay had iyo jeer arkaan ummadda halka uu jacaylka nebigu ka gaadhsiisan yahay calayhi salaatu wasalaam iyo siduu ugu wen yahay ay kana waantoobaan waxyaabaha inala gudban walaalayaal waxaa ka mid ah inaynu gaaladaas noocaas oo kale sameeya habaarno الدعاء على من آذى النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لمن نصره عدة النبي عايده كحد قدبتنا إن لها بارو عدة وهي لسنة لو دعايه خاصة واختيار الدعاء الله أقبله
taasina waa waajibaadkeena saaran bay ka mid tahay waxayna saaran jacaylka nebiga calayhi salaatu wasalaam in ummadda lagu beero manaahijta waxbarashada lagu daro siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam dugsiyada hoose ilaa jaamacadaha siirada nebiga iyo waa ayo nebi maxamed in lagu daro haddii aanad nebiga garanayninba ama aanu kugu weynaynba sideebaa dadka u odhan kartaa weyneeya adigoo adigu aan aqoonin nebiga adigoo adigu aan garanaynin rasuulkii sala allahu calayhi wasalam ama aan weynaynayn inaad tidhaahdo gaalay weyneeyo ka daaya dee isqaban mayso haddii wax lagaa weydiiyo waxba ka sheegi kari weydo aanu nebiguba miisaankiisa iyo wasnigu lee aanad garanayn si aad ugu hilinaysaa wax badan baa laynooga baahan yahay oo ay ka mid tahay sunnihii nebiga inaynu raacno iyo hadigiisii iyo dhaqankiisii oo marka aad nebiga jeceshahay waxaad ku dayataa siiradiisii hadigiisii camalkiisii cibaadadiisii ilaahay baa wuxuu uhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah ilaahay baa idin jeclaan doonee nebiga haddaad jeceshihiin waxaad tidhaa nebi maxamedow isoo raaca wixii nebiga ka soo fulay waa inaynu qaadannaa wixii uu diidayna aynu iska daynaa waxay ka turjumaysaa inuu inagu wen yahay aynu jecel lahay wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu nebigu idinla yimaado qaata wuxuu idiin diidayna iska daaya waxay u baahan tahay arrintaasi aqoon ka baxaysa dugsiyada ka baxaysa masaajidada ka baxaysa iclaamka waxaynu u baahan nahay dadka had iyo jeer ku mashquulsan waxbaahinta ama baraha bulshada ka baahiya ama kabaradaha iyo saxaafadda haya waxyaabahay nebiga isku garab taagi lahaayeen ee ugu hiilin lahaayeen weeye kuwa soo caayaya waa saxafiyiin ee odhanaya xor baanuna waa xorriyadda iyada inaan rasuulka cayno iyo rasuullada marka adigii ka jawaabi lahaa ee saxafiga haddaad iska aamusto macnaheedu waxa weeye inaanad nebiga rumaystayn ama aanu kugu weynayn ama aanad aqoonin nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha inala gudbani way badan yihiin ama xuquuqdu nebigu inagu leeyahay waxaynu kaga soo hadalnay khudbadii hore inahaasaynu kusoo ururin karnaa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اليهود والنصارى وموالاهم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة